wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ayaan Yuusuf Maxamed oo ahayd inaan daayir oo hore warbaahinta loo soo galiyay iyadoo ay ku tacadiday haweeney ay isku qoys yihiin isla markaasina wasaaradda waxbarashada oo hore ugu dhawaaqday inay kafaalo qaaday guud ahaanba waxbarashadeeda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno ay weeliyeen agaasimaha guud iyo xubno kamid agaasimo xudud wasaaradda ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ay qaabilaan isla markaasina inta nolosheeda ka hadhay ay waxbarashadeeda qaabili doonaan ka wasaaradahan ayaa sababta inuu qaabilay marka waxa weeye in aynu waxbarashadeeda ay wasaaraddu damaanad qaato ilaa iyo markay bilowdo ilaa iyo hadii Ilaahay yiraahdo ilaa intay dhamaynayso heerkay ka gaadhay iyadu berigi dhaweyto aynu warbaahinta ka daawanay waxyaabo ay la kulantay oo laga yaabo inay cid kalena ku dhacaan inagoo caruurta Soomaaliland oo mas'uulka haddana kuwa uu dib la soo darsa ama ha yaraado ama ha weynaado damqashadeeda inuu leenahay ayaana waxaynu ka rajaynaynaa iyo qoyskaba iyo ehelka iyo dhammaan reer Soomaaliland in aynu la dagaalano oo aynu joojino cid kasta oo tacaddi ku sameynaysa caruurta iyo qof kasta oo jilicsan marka waxaanu ka rajaynaa ayaana inay wax mustaqbalka markii weynaatay PhD qaadato inay ka shaqeyn doonto in caruurta aan fursad u helin waxbarasho habliye inaba ama dhiban sidii ay ugu gargaari lahayd soo dhawaada ayaan abtigeed wasaaraddu waa tiidin bal qaaday inay waxbarasho in ka laga bilaabo waaxda waxbarashada tooska ayaa iskuulkay doorato geynaysa amba ka gurigooda ugu dhow amba kay doorato wasaaradda ayaana bixinaysa hadii la yiraahdo waxaan ka rajaynayaa inaad dadaasho wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno waxa uu guud ahaanba fariin u diray waalidiinta kala duwan iyo mas'uuliyiinta gacanta ku haya qaybaha kala duwan ee waxbarashada in laga hortago tacadiyada loo geysto caruurta waxaanu tilmaamay wasaaraddu ay mas'uul ka tahay guud ahaanba daayirta kala duwan ee Soomaaliland waalidiintana waxaan ka codsanaynaa in caruurta loo edbiyo qaab togan oo wax ku beerinaya maskaxdooda oo wax u sheegida laakiin aan ahayn waxyeelo ku ah jir ahaan maskax ahaan iyo aqli ahaanba goobaha waxbarashada Soomaaliland oo dhanna waxaan doonayaa inuu sheego in ilmaha uu wax ku dhaco ardayga wax ku dhacaan afar saacadood gudahood waa in xarunta wasaaradda lagu soo gaarsiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Bakar Maxamed iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska Xuseen Cabdi Caawil Fodcade oo halkaas ka hadlay ayaa iftiimiyay in wasaaradahan ay garab istaagi doonaan ayaan iyo waxbarashadeeda si dhowna ula socon doonaan muddada ay ku jirto waxbarashada iyagoo sheegay in ayaan la geyn doono goob alla goobta ugu jeceshahay in ay wax ka barato maanta waxaan la joogtaa ayaan Yuusuf Maxamed Diiriye waa muwaadiniinta reer Soomaaliland oo tacaddi runtii aan saxaafadda ka aragnay qof haweena oo ay family-hiina u geysatay laakiin ayaana waxa farxada in qarankaaga ku heliyay in shaqo lagu siiyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan banku shaqo ku siiyay wasaaradda waxbarashadana saa wasiir ku dhawaaqay lagu siiyay marka waxbarashadaada iyo deeqa waxbarashada wax xuquuq iyo xaq waddankaaga ku leedahay adna waxa laga doonayaa mas'uuliyadda culeyskeeda inaad qaado sida waddankaaga u jeclayd inaad ka sii badan u jeclaato waxbarashada inaad ku dadaasho marka dhammaan muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland runtii tusaale u tahay adiguna qarankaaga ku damqaday inaad jeclaato lana shaqeyso waxbarashada ku dadaasho wasaaradda waxbarashaduna waajibkii qaranka ee muwaadiniinta adigoo kale ku lahaayeen bay markaa gudanaysaa Nabi Yuusuf ban xasuustay alayhi salaam oo ay walaaladii ceel ku rideen oo markii dambana boqor ka noqday oo khasaain al-ardi lagu wareejiyay nabiyullaahi Yuusuf waxa weeyaan sababtu noocay dantay soo mari kartaa waanay mahadsan tahay oo ayaan waxaan aad iyo aad iyadana ugu ducaynayaa inay cafisay oo cafiskana waxa weeyaan astaamaha dadka wanaagsan ayaanay soo dhawow waxbarashadaada insha Allah haday buug noqoto iyo haday qalin noqoto iyo haday wax dhigashada noqotaba wasaaradda waxbarashada qaaday Shaafici Ciise oo ah ayaan abtigeed ayaa isna ka mahadnaqay deeqda waxbarashada wasaaradda waxbarashada sayniska oo u fidisay inantaasi oo ah in aad u daayir isla markaasina u baahan adeeg waxbarasho magacaygu waxa weyn Shaafici Ciise Cusmaan waxaan ahay ayaan abtigeed sawada garanaysaan ayaan waa aragteen aduu gabadh qoyskeeda ay dhibaato ka soo gaadhay meeliyahana gelisay maanta waxaan joognaa wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaan la kulanay
wasiirku wuxuu ballan qaaday waxbarashadeeda inaan taageero inuu waxbarasho bilaash ah siin doono waxbarasho wasaaraddu ay siin doonto iskarab taagga wasaaraddu iskarab taagtay iyadoo markii horena ay dawladdu iskarab taagtay oo banka shaqo laga siiyey oo gudoomiyaha banku markiiba shaqo ugu ballan qaaday shaqadeena ay gasho ka shaqeyso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye waa idinka mahadnaqaynaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha wasaaradda oo dhan sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa hodan oo iyaduna xiriiriye ahayd oo nasoo wada xiriirsiisay anaga iyo wasiirka waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintan ayaa dhiirigelin iyo waxtar u noqonaysa ayaan Yuusuf Maxamed oo ah inan daayar isla markaasina waqtigan u baahan inay hesho waxbarasho iyo mustaqbal